بسم الله السلام سمعلوين سيتين سوح ونكسن كلو ونكسن وقت قاعد عاوني سيدو ونكسن سوصانا عاد حيس بدل كسو رواد أركين جنال معد فيديو ينحوك تابسين ياهي سيدا عوان كسو أركين what does an accountant do محو قبطا قفك حسابيها انت أسلكو ذكر محو قبطا قفك حسابيها كو waxaa ogaanayna horta accounting-ka maxaa waaye iyo laba goobaha looga baahan yahay inuu ka shaqeeyo qofka xirfadaas soo bartay ko accounting waxaa waaye waa hab lagu aruuriyo lagu diiwaan geliyo sidoo kale lagu tafatiro lagu soo saaro xog xisaab ee shirkada leedahay kadibna la wadaago maamulka si go'aan loo gaaro goobaha looga baahan yahay qofka soo bartay xirfada inuu ka shaqeeyo si guud laba oo kala qaadayna shirkadaha guudiska iyo kuwa service-ka bixiyo guudiska da usii dhaadhacno waxay noqon kartaa shirkad oo production oo wax soo saarto oo alaabo soo saarto tusaale dhar iyo boorsooyin kabo kiyaaliyaal koofiyad qalabka dhismaha qalab guryaha wax walba loo baahan yahay kuwan way soo saaraan kuwan sidoo kale way iibiyaan soo saaraan iibiyaasha ha ahaadaan kuwa oo jumla iibiyo hooster ah ama kuwa tafaariiq iibiyo dukaano yar ha ahaadaan marka meelahaas oo dhan goobahaas oo dhan waxaa looga baahan yahay qof xisaabiya waayo lacag isdaba wareegaysa oo bixaysa oo soo galaysa idaana laga rabaa meesha oo xisaabina sidoo kale ugu maana shirkadaha service-ka bixiya aadan tusaale hadda usoo qaadno waxaa dhihi karnaa goobaha waxbarashada goobaha caafimaadka isgaarsiinta tusaale intaas ah service-ka waxaa asiga adeeg lagu qabanayo bas aad arkin oo waa kana sida guudiska lagu dhigi karin shaygaana iibsatay ama taleefankana iibsatay laptopkana iibsatay waxaana iibsatay qalab wuxuu ahaado oo lacagta marka dhiibta wax ku soo bedelinayna la arkin kuwa marka tusaale iskuulka tagaysa waxa dhigaysaa waxbarashada baa lacag bixinaysa ma jirto wixii lagu dhahay aqoonta waa tan oo qaadan lagu dhahayo balse waa baranaysa waqtiga qaadanaysa waa ku qanacsan tahay in lacagta adiga oo kala bedelto sidoo kale caafimaadka lagu daaweynaa sidoo kale goobaha isgaarsiinta oo lagu shaqeynaa internetka hadal lagu shuba saas adeegaas lagu qabana goobahaas oo dhan lagu baahan yahay qofka oo accounting soo barta lagu baahan yahay isbitaal ha ahaato iskuul ha ahaato waxbarasho ha ahaato goob waliba oo laga rabo maxay ahayd faa'iido oo lacagna bixaysa lacagna soo galayso ayaa looga baahan yahay maxay ahayd qofka accounting-ka marka kaliya goobaha ganacsiga ma looga baahno haddana waxaa ka hadlaynaa muxuu qabtaa ama maxay tahay waxa laga rabo inuu sameeyo qofka xisaabiya horta wuxuu ilaaliyaa xisaabta shirkadda wuxuu ilaaliyaa oo gacanta ku haya xisaabta shirkadda waxay sameeyaan marka waxay aruurinayaan oo ay diiwaan gelinayaan dhacdooyinka quseeya dhacdooyinka lacagta la xiriir oo quseeya diiwaan gelin sababta u dhaxeen dhacdooyinka lacagta quseeya dhacdooyin fara badan ka dhaco goobta ganacsiga marka aniga waxaan qusaysa ama dadka xisaabiyaha ka quseeya waxa lacagta quseeya fikir waxa soo kala lacag baxday lacag soo gashay deena uu leeyahay mida anaga dadku leeyahay waxa soo xisaabina marka hab wax loo xisaabiyo jir accounting habka soo xaal leh down entry waxaa waaye waxaa la wadaa wax walba ama dhacdo kasta ee dhacda waxay ugu yaraan saameyn ku yeelanaysaa laba akoon ugu yaraan waxay saameyn ku yeelanaysaa laba akoon oo loo dhinac saameyn ku hadii labadaas dhinac saameyn ku yeelan weyso su'aalaha meesha imaanaysa tusaale ka soo qaadana anaga waxaan ahay dukaan aan tusaale oo mobilada iibiyo aniga hadaa baxno dad horta customer una anaga ayagana waxay noo supplier ama shirkadda taleefana iibsato oo tagan ama wholesale aad soo iibsan taleefana soo iibsanayna samahan tusaale cash bixine taleefana soo iibsanayna soo adeegana cash anaga baxso ma waa in cadeynaa dhana cash out naga noqday dibidi kadib labada dhinac baa kala dhaanta snaagtay waa in cadeynaa dhana cash out naga noqday kadib naga noqday bas hada meesha ku ekeeno oo dhowl laba dhinac saameynayso ugu yaraa aan sheeg weyno su'aalaha maalis forward ala dhaha question mark marka si ay su'aasha ma umaan waa inaan wax warka dhan u cadiyaa lacag anaga baxday taleefana soo iibsano oo soo adeegin okay lacagana soo gashay hay'adahan waxay nagu soo gashay waa inaan caddahay su'aasha dhan si u imaanay waa inaan caddaha oo waxaa laga rabaa shaqadaas qofka xisaabiya inuu qoraa lacagana soo gashay qof kasta macmiila taleefana laga iibsaday deen ayaa qof macmiil ku leena sababta ugu leena waxa ay naga iibsaday lacag ma bixin ama qayb oo bixiyay qaybtaasna cash ahaan u qoranta qaybta oo bixi waayna waxay u qoran tahay waa laga sugaya korsiibal lagu qoranta aniga hadda wax soo deensano oo deen ku soo gadano deenta waa naga raba oo inuu qoranta kombebel waxa leena deentana nagu sugayna ay tahay inaan iska bixino laba dhinac ka badan inta saameynaysa isla hadda ba aragnaa qof tusaale wax iibsado qaybna uu cash ku bixiyo qaybna dhaho haliga sugo saddex saamaysay waa cash horta waa hayna oo qayb cash ku dhiibi qayb mid xigta waxa waa akoonsiibal noo qoran oo deena waa ku sugayna qayb mid kale waxa waa shayga laga iibsado qofka taleefon tusaale ahaaday ayaa naga baxay saddexaad saameys waa arkuna la balse ugu yaraan waxa saddex ka badan noqota ugu yaraan waxa laga rabaa in laba noqoto hadii laba noqon weyso qalada meesha iska jiro waa in la soo helaa soo saaro
qaladkaas dhan si uu dhicin waa in laga hortagaa marka hore. Okay, waa ogaan si wax loo diiwaangeliyo ama habkii u dhacdo diiwaangelinta u maano sidee loo xisaabiyaa faa'iidada, sidee loo xisaabiyaa faa'iidada. Horta muhiimadda ugu weyn waxaa waaye oo ganacsiga loo furay ama goobta waxbarasho ama goobta shaqo ama goobta caafimaad waxa loo furo faa'iido maana faa'iido in la soo ma ahan. Haddana waxaa la arkaynaa sida loo xisaabiyo faa'iidada waan meelaha qaladka ugu fara badan oo ka imaada dadka bulshada. wax aan faa'iido ahayn ama faa'iido aan qarashaadka laga jarin al xisaabina al dhaha waxaas faa'iido. Tusaale marka soo qaadanayna si faa'iidada saxda ah oo ogaatid koob waa in aad ogaatid qiimaha waxa ay iibinayso, qiimaha saxda ah ee waxa ay iibinayso ay kugu fadhiyaan. qiimaha saxda oo isbedbedela qiimaha shaygu ku fadhiyo ayadoo loo fiirinayo maxay ahayd qarashaadka soo kordhay. tusaale aan soo qaadanayna marka qalkan tusaale soo qaadanayna tusaale waxaana anaga dukaan iibiyo qalmaantii buugaagta tusaale marka qalkan waxa soo iibsanay shirkad oo jeena ku taalo qalin hada ma soo saarayna wala mar tusaale leeyahay waxa badan soo saarna bas kan tusaale soo qaadana shirkad jeena ku taalo qalkan soo iibsanay qalmaan fara badan yani halka ama qalmaan fara badan soo iibsanay marka waxay naga sii cala xabad ee noogu dhuftaan $1 marka qalinka wuxuu noogu fadhiyaa $1 goorma marka aad taagana shirkad aad ka iibsaneen ay noogu fadhiyaan هذا الصور قاقنا إنت كبدنا نوفر يعني وايو حمالية قلا حمالية قبل عمل عسل مركي أوكي كارجو على صوص عاري قن كان صار كارجو على صوص عاري محيد كارجو على صوص عارو هاتو المركب أو ديار هات اللي ديار الحين قدنا بيكسر قارسين أو عرب اللي على نايت صار أوكي قالك كارجو على صوص عارني متشوي ماذا وعلى عن شوري هذا حمال كلا جري أو قبت دكان كان قرحسي أو سوق عدنا بس كنت مركو دكان كإمادة wuxuu ku imaanaa horta qiimihii shirkadda aad ka soo qaadeen maahan qiimo ka duwan waayo canshuura soo gashay waxa soo galay cargo-gii delivery-kaas marka la soo tago delivery kala soo galay oo xamaali kale oo ilaa dukaanka la keenayo soo galay intaas kadib intaas qiimihii hore qiimo ka badan oo markaas kugu imaanaa markuu imaado kadib maxaa ku saa'idahay kirada ku saa'idaysay waayo goobta wax lagu iibin hatta haddii aad guriga ahaato oo dad qaar ah online ku iibiya kirada u baxday guriga ma xisaabsan miya guriga waa in uu xisaabsan yani kirada guriga oo dhan aan saarana laakiin qayb kamid ah kaga aadayso qayb kamid ah kaga aadayso waxa la iibinayna wax far badan waxyaabo shayaalka in kun ama wax far badan laga soo qaada laga yaabaa inta kirada ka soo dhaafada ayagana loo sii qaybiyo balse jar kaga soo aadayo hasdeen waxaan dhan la saaran inta la socda balse jar aad u yar kaga soo aadayo balse waa muhiim in la xisaabiyo si loo ogaado qiimaha saxda ah oo shayga loo fadhiyo marka aan guriga loo iibi ama goob ganacsi kirada waa in la xisaabiyo okay marka la xisaabo kadib waxa la xisaabaa shaqaalaha qofka ka shaqeynaa waayo shayga asii gadgadayo asii hagaajinayo asii meel asii saarayo isma habeenayo qof ayaa ka shaqeynaa maana qofka shaqaalaha ah mushaarkiisa waa in la saaraa mushaarka dhan oo qofka shaqaalaha bisha sii lahaa halka shay ma la saarayo ma laga wado laakiin waxa dhan ala saara loo qaybinaa wax aad u yara marka calaamad kala soo aadayso waa muhiim in waxaas aad u yara la xisaabo sidoo kale waxaa la xisaabaa lacagta korontada la xisaabaa waxaa kaloo la xisaabaa maxay ahayd هذا تصالح جناحسي يعني أونلاين على حسابه حيسين على حسابه الحاجة هذا وحكى له الحساب هذا دليل سمينا أوضتك أوجينه وجريها أوجينه القرش كسر الأول حسابه وحيابها صار مركز حسابتي شيء كان هدي كده وأنا قيمة صح ده أو شيء مكوف اليوم دليل كده كبح دليل أدوجونيها أوقف كله وح لابتوب كوسو ديبه الدليفري انت سوا بحثه اوكي وقفك سجولي وبحثه هديك كل شيء لو حساب شيء وحساب سنيه dad loo firi delivery wax firi lahayn ma jiro shayga alaabta laga iibinayo aa lagu xisaabaa marka ogaan qiimaha saxda oo shayga noogu fadhiyo waxa dhihi karnaa maxaa iibinaa kadib inta la iibinayo tusaale waxa laga yaabaa in ogaan $4 inuu noogu fadhiyo waxa iibinaynaa $5 ama $4 bada iibin nus faa'iidana hadda iibin $1 faa'iido waa faa'iido saxda ee netka ah oo qarashaadka oo dhan lagu soo saaro marka hadii aad dhahno qalad weyn waxa kale hadii aad dhahno nus oo noogu fadhiya $5 waa iibin $4 bana faa'iidni wajibkeena ku jirta hadda dhahno qalad weyn waa intaas ma faa'iidin qarashaadka oo dhan ma laga jarin marka waa in aad ku xisaabtato qabti ganacsi ina faa'iido ma ufur waa in ogaada ama qofka xisaabiya waxa shaqadiisa loo diraa in xisaabiya faa'iidada marka hore dhacdooyinku aduurna oo qoraa diiwaangelina kadib waa taftira waxaa jiro wadooyin badan ee barta ama saakala badan account cycles badan ee jiro oo soo maro wadamada financial statement lagu aruurina ugu muhiimsan waa qof waliba oo banaanka xataa ka shirkada wadoo imaado akhristo oo nadiif ayada ay hadli kartaa la qabto marka barasaas fara badan kala duwanayso waxaa ku arka marka qadka
كليب maxay ahayd boorsooyinka dad dhahaayo dhiirgelin wada dabcan dhalinyaro ahaa dhiirgelin wada dhahaya waxaa soo adeeganay lacag soo adeeganay albaaba soo adeeganay boorsooyin tusaale boorsooyin soo adeeganay maxay ahayd waxaa iibinaa waxaa keenay inta marka lacagta xagga soo iibsadeen ay sheegeen waxay dhaheen hal dhibic aday jajab ahayd hal dhibic shan iskale tusaalaha kadibna kaarbogay ku dareen iyo cashuurta soo canshuur $2 tusaale boorsada noogu fadhisaa ee qiimeeyeen waxayna dhaheen $9 ku baxday aniga attack moodna kaliya oo xisaabta ka saxeena dhiirigelintooda iyo ku saxayeen bas xisaabta ka saxeena marka waxay dhaheen 9 waa ku iibinay 2 waa noogu fadhisaa dhaxal faa'iido $7 keesana faa'iido sanad ma sax ma qarashaad fara badan ku jiro qarashaad fara badan ee ahayd in laga jaro oo ahayd in lagu xisaabiyo ayaa ku jirto waayo qofka marka uu imaanaysa halaas bas uu xisaab kali kaarkooda ku dareen iyo cashuurta ku soo dhacay balse waxaa la rabaa in la xisaabo maxay ahayd in la xisaabaa la rabaa kirada oo sheega marka saas loo keeno meel guri xataa oo leeyahay guriga ku sameeya guri naftiisa kirina oo xisaabta laga rabaa sidoo kale waxaa kirina oo xisaabta laga rabaa maxay ahayd kirina xisaabta laga rabaa sidoo kale koronto in xisaabta laga rabaa qofka shaqaale oo ka shaqeynaya in uu hada furfuraya habeenaya iibinaya kala warwareejinaya kala roy wuxuu baahan yahay mushaar u baahan soo maahan mushaarka in sarta yani malaga wado halkii shay mushaarka in la saaro laakiin qayb yar ama wax yar oo percentage aad u yar kaga soo hagaaga cala xabada marka waxaas ina dhan ilaa xisaabiya la rabaa sidoo kale xisaabiya hadii online lagu iibiyo advertisement expense sameeyo soo galayso xaysiinta lacagteeda soo galayso telefoonka lacagtiisa soo galayso internetka lacagtiisa soo galayso waxyaabahaas dhan ilaa xisaab delivery hadii lagu qiimeeyo in lagu qiimeeyo ayada laftirkeeda la xisaabiyo hadii kale oo lagu bixinayo delivery qof baxsan dhahay gooniisna waa gooni waa warcad laakiin ma jira delivery dhahay free waxaas waxaa lagu quruxsadaa maxay dadka lagu soo jiita taad kale waa balse wax free delivery dhahay ma jira shayga ay iibsanayso ay ku xisaabsan yahay free dhahay hadii kale gooniga lagu sheega oo lagu cadina waxa lagu dhahaa delivery baxso meesha lagu keenayeen ay ku xirinta inta baxsanaysa delivery okay taas waxaas oo dhan markii la qiimeeyo waxaan dhihi karaa intaas ay faa'iidada saxda ah marka borda $2 kaliya xisaabsadeen waxaa laga yaabaa markii la xisaabiyo si saxda ah inay $6 u fadhiso marka qiimaha oo saxda oo kugu fadhiyo wax marka ogtahay qiimaha rabtid ama ku dirsa kartid faa'iido ahaan sheegatid tusaale 6 igu fadhiyo soo waada qarashaadka lagu daray 9 hada iibin ka waran okay oo 3 faa'iidno okay waa adi iyo maxay ahayd iyo waxa ajcishaaba marka inta laga soo tago iyo suuq sidoo yahay in uu soo u jaan qaadil garab adag bas aniga muhiimada waxa waa xisaabeena faa'iidada iyo qarashaadka wax si loo kala jiro hadda kalen okay 9 iibsadeen waxay xisaabsadeen ayaga faa'iido $2 kaliya oo fadhiisa xisaabsadeen qarash 9 inaga iibiyeen $7 faa'iidadaas qadaad fara badan ku jiro hadii oo dib loogu laabto xalaya in 6 uu fadhiso qiimaha saxda ah 9 ku iibiyay faa'iidada saxda ah ay tahay $3 okay hab xisaabeed marka akoontka xisaabiyo ka mistiga waqtigeeda la qora taariikh la qora sidoo kale waxa lagu bilaabaa oo lagu hormariyaa faa'iidada guud ah faa'iido isla boorsooyinka ku socono aan dhahno saar albaaba waxa ka dalban 100 boorso ala boorsadu waxa lagu fadhisaa hal bishan inuu fadhisaa albaaba ka iibsani waxa iibina xabad $9 marka 9 ku dhufo 100 boorso 9 hal ku dhufo labada ibraac 9 boorsana faa'iidadeena guud waa 9 ayada lagu hormarna waxa lagu xijina lacagta ay ku fadhisaa lafaha ah oo shirkadda ay kaga iibsan ayadana hal dhib shan cala boorso lagu fadhisay hal dhib shan waxa ku dhufanayna 100 boorso waxay noqonaysaa 150 soo bixiso 150 marka ay soo baxdo waxa kala jaraynaa faa'iidada guud ee 9 ka ahayd imidan oo lafaha 150 ah marka la kala jaro waxa soo baxay waxa la cross profit waxa waaye waa qiimo waxa waa faa'iido aan wax qarashaad ah laga saarin cross profit waxa la waa faa'iido aan wax qarashaad ah laga jarin waa howl badan ku dhiman taas ma dhihi karno faa'iidada saxda ah ma dhihi karno okay marka 900 marka 150 ka jarno 750 ma soo baxayso 750 waa cross profit waa faa'iido aan wax qarashaad ah laga jarin qarashaadka soo raacay marka jaray salary expenses ka jaray rent expenses ka jaray advertisement expenses ka jaray telephone expenses ka jaray internet expenses ويعني wax alaali wix qarashkii galay aadi ogtahay ka jaraysa marka la hayo salary laga jaray ama ayaa lagu wareeray yani wax fara badan la iibiya waxa soo dhan loo qaybinaa dadka shaqeeya mushaarkooda ama waxyaabo percentage aad u yar ala shaygi kaga soo aadaan
ay hal shay wax dhan ma loo saaraa على شيء wax aad u yar ah ka soo aada marka waxa waa muhiim marka in la xisaabiyo marka qarashaadkaas dhan soo raacay ah xisaabsid ugu sameys taxiga ah xisaabsid qarashaadkaas oo dhan soo dardarsanaysa waa ka jir taxiga si gooni oo jar kartaa oo faa'iido ka hor taxiga waa oo sameyn kartaa ama si guud qarashaadka oo dhan macna taxi inta isku dartid waxa dhigi karnaa qarashaadkeena dhan expensiga dhan inta loo leeyahay marka dad tusaalahan muxuu ahay hal dheesha ayadoo lagu fadhiiso qarashaadka dhan soo raacay waxay isku noqdeen 6 samaha dhaxda wax sabaxa $4 iyo bar in ay gadaal dam kaga darsan oo qarashaadka gadaal dam kaga darsan oo $4 iyo bar ah $4 iyo barka hadii aan ku dhufano boqolka boorso waxa soo baxaysa lacag ah $450 $450 kaas waxa ka jareena $750 koros barafadkii faa'iidadii aan qarashka laga jaray ma ahayn koros barafadkii faa'iidada aan wax qarashaad laga jaray soo ma ahayn faa'iidadaas qarashaadkeena noo soo baxo dhan isku darsan waa inaan ka jarnaa $450 waxaan soo baxayso 300 ayaa ah faa'iidada nadka ee saxda ee nadiifka ah okay sasay faa'iido loo xisaabiyo konton ama qof xisaabiya oo faa'iido xisaabiya waa faa'iido sax ah oo wax qadaad ku jiro oo qarashka dhan laga soo saaray oo shayga wuxuu ku fadhiyo soo saar oo nadiif ah saas loo xisaabiyo marka saas u xisaabsid oo ku soo baxay faa'iido qasaarna ma soo bixi kara tusaale waxa is dhaafinayna ama iska xaraashayna ama laga tagay way jiri karaan oo marka qasaarna mar soo bixi kara qasaarada soo baxa waa cadeynay waxay noqonay markaas loss ku jirnaa sama ahan net loss ay noqonay markaas hadii faa'iido soo baxa net income soo baxa faa'iido nadiif ah qasaara naftiisa oo ina cadiya okay waxa laga rabaa marka qofka xisaabiya inuu sameeyo kala isbarbardhig bishan waxa faa'iidnay iyo bish ka horeysa waxa faa'iido waa inaan isbarbardhig karno hor mu soconaa mise dib u soo dhigana waa inaan kana bilooyinka kale oo soo dhaafo inaan isbarbardhig kartid sidoo kale marka xisaabaha faa'iidooyinka la xisaabiyo 3 bil mar ayadana waa la xisaabiyaa sanadka barkiisa sanad dhamaadkiisa waxa sanad waa inaan isbarbardhig kartaa ayadana sanadihii hore iyo sanadkan iyo sanadka hore iyo sanadihii hore inaan isbarbardhig karno kulliin oo hore ma u soconaa oo faa'iidadeena marka si dambe sameysiin ka qabxaysa mise mar hoos soo dhacana mise marka si dambe san dhulka wadaadana oo hubinana waxyaabahaas oo dhan sababta oo loo isbarbardhiga oo loo soo saaraa maxay tahay oo la sheegay loo cadeynaa loo qeexaa waxa waan go'aan ay lagu gaari lahaa waxa iska bedelnaa si oo faa'iidadeena oo kor u kacdo oo dib u sii socodkan iska ama khasaaraha galayno waxa ku yareeyna waxaas oo dhan aan laga hadlaa sababta oo u leeyahay xogta waxa la wadaagaa manager si ay go'aan u gaaraan saas ay waa laga wada hadlaa waxa waaye ganacsiga inta u socdaa iyo inta ku socdaa iyo maxay maxaa wax ka bedelnaa iyo hadii xataa isbedel aan sameeyo isbedelkiisa faa'iidada oo dhaliye isbedelka sanadka hore camal aan sameeyo sanadka faa'iidada soo keenay wax sadan ayuu sheegaa lagana faa'iida go'aanaha soo lagu qaadana marka isbarbardhigga marka faa'iidada sanadka hore iyo sanadka ama bisha hore iyo bishan iyo si guud sanadii la soo dhaafay iyo sanadkan iyo qofka waxa laga rabaa marka xisaabiyaha inuu sameeyo kala isbarbardhiggaas sidoo kale waxa kamid ah waxyaalaha la rabo in qofka oo maxay ahayd accounting diyaariya income statement ka soo sheegnay return earnings sidoo kale balance sheet financial statement saddex oo muhiimsan yani borsaasada fara badan oo soo mar way jiraan oo ka horeeyaan kuwaas balse borsaasada kuwa soo koobay oo xogtan in laga aqristo muhiimka ah tahay waxa waa intaas kuwaas kalena waxay wadada kuwan loo soo maraayo loo soo hagaajinayo lahaa okay balance sheet maxaa ku qoran balance sheet waxa ku qoran cash maalinka shirkadda yaalo maalinkaas waaya cash shirkadda yaalo sidoo kale akor receivable noo qoran lacagaha aad dadka sugeeno oo customerskeena ay nolol maqan yihiin waxa ku qoran aniga tooliska ama festivalka ahaysano waxa kale ku qoran hanti gurto oo dawleeyahay ganacsiga wala asada meesha ka muuqdo waxa kale ku muuqdo liability deemo wala aniga deynta lagu leeyahay oo dad kale ay lagu sugaya company bala qoran idirtaan ay ka taanka sidoo kale ayadana ku qoran u timis qayb waxa la diyaariyaa si vertical ahna waa la diyaariyaa si horizontal loo diyaariyaa balse income statement waxa la diyaariyaa kali si vertical okay balance sheet markuu in sacdeenayo xogta dhan ay ku qoran tahay waxa marka qof lacal haduu jiro oo shareholder inuu noqdo rabo oo inuu nagu sabiir rabo wuxuu qiimeynaa qofkaas wuxuu qiimeynaa oo akhna financial statement inuu qiimeynaa income statement inuu fiiriyo dadkan faa'iidada mar si dambe si fiicnaata sanadka si dambe kor ma sii socdaan mise ila ku soo yaan mise khasaaro ku jira okay meesha soo qiimeynaa sidoo kale qofka wuxuu qiimeynaa balance sheet inuu tagaa wuxuu dhahaa dadkan cash imse haystaan oo yaalo akor receivable kooda badan yahay lacag dadka ay sugaan badan tahay oo ayadana tagaa wax xisaabtama waqti noqon in la soo aruuriya laga yaabo qaar kamid ah in la soo aruuriyo sidoo kale qofka wuxuu qiimeynaa aniga deynta nagu leeyahay inta la egta badan tahay deyntaas awoodeena ku bixin karnaa inta
انت لا اكتب قيمنا ايوه اسو قيمنا قفكس كاشكين awood ay ku bixin karaan intay la eg tahay deynta ugu leeyahay hadii marka tusaale deynteen ay badan tahay awood ay ku bixin karaan ay yar tahay sidoo kale akoorsiifka baleeyahay oo dadka badanka ay looga adeegtaan deyn waxaan u soo baxayso qofkaas inuu soo wax ma tirsan meeshan bankarka ay ku socotaa ganacsiga in albaabada la soo dhufto ay u dhow yahay qofka si ama taagana xogta kaliya arsana oo baxay marka ama xogtaas waa la wadaaga marka su'aasha weydiinaya ku haboon in loo shaqaaleysiyo inuu noqdo qof xisaabiye ama shaqada u xisaabiyo marka isweydiyo waxaa laga rabaa qofka qodobada muhiimka laga helo ayaa tahay ama barfadka ama ku haboon in oo booskaaga shaqeeyo waa boos muhiim ah oo laf dhabar ah oo aas ah oo hadii uu hagaagan inta kale laga wada hadli karo hadii qasmatana ama qaladaadka dhacana lagu wareerayo marka qof muhiim ah ayaa la rabaa in maxay meeshan loo shaqaaleysiyo marka waxaa laga rabaa qofka shaqada uu yaraan inuu bank tagriyeeso oo accounting oo kaleesto hada CPF sidaas ama kuwa kale waa kaalis ka rabaa sidoo kale waxaa maanta skillska inuu ku fiican yahay qofkan ama uu xisaabaha ku fiican yahay ama uu xiiseeyo oo jecel yahay maanta dhan ku dhex jiro qof necab oo karaasana dhibsan haduu yahay dhibkeeda leeyahay sidoo kale waxaa la rabaa in uu yahay qofkan qof oo computerized accounting ku shaqeyn karo oo software kan ay fahmi karo qofka waxaa la rabaa inuu noqdo qodobka u dambeeya qofka waxaa la rabaa inuu noqdo qof wax soo gudbin karo wax soo jeedin kara waxaan qofka uu sameeyay oo qofka maxay managerka wuxuu ku dhigi karaa xogta si company-ga bishan soo dhaafay si ama bilii soo dhaafay marka waxaa lagu weydiin karaa ama warqada ama wixii aad diyaarsan inta qaatan akhrisan karaa ama waxaa la dhigi karaa isoo koob ama noo soo gudbi isbarbar dhig samee sanadihii soo dhaafay faa'iidadeena cash flow statement ka hadal waxa soo dhan maxay ahayd si guud noo soo koob ka dhigi karaa ama qalabka alaabaha badeecada iibino waxa yaalo waxa baxay mid uu socodka fiican waxa dhan marka qofka inuu soo jeediyo noqon karo ka hadli karo dhigi karo sanadihii la soo dhaafay sanadkan wuxuu u duwan yahay faa'iido fiican faa'iidni marka sanadkasta faa'iideen way sii kordhaysaa qalabka ugu socod badan waxa uu iibsid badan waxaas waaye kaashka inta shirkadda taalo intaas la eg tahay alaabta ama akoorsiif balkeen uu yaryahay dadka lacagii badanka way keeneen ama kasiyara ku maqan maxay ahayd inuu dhigi karo qofkaas aniga deynta lagu leeyahay intaas la eg tahay awoodda deynta lagu leeyahay bixinteeda intaas la eg tahay xogaha qofka xisaabiya laga rabo ama oo qor waxa kamid ah storka waxa yaalo yacni alaabaha haray wax marka la iibiyo alaabta marka la soo adeegto tiraal lagu soo adeega macyan ah 100 xabo shay tusaale wax hebel ka soo qaadanay 100 imsaal la iibiyo imsaal taala imsaal inta la iibiyo meeqa kaash la qabtay meeqa lagu iibiyay maxay qayb kaash ay qayb deen ay meeqa deen kale lagu iibiyay oo akoorsiibal ay qoran tahay qofka oo iibiyo waxa laga yaabaa la weydiiyo in uu dhahtaa waana sax oo marka uu qoray rasiidka ugu dambeysay oo dhahay inta sheegaysa iibinta soo iibi bas markaas ugu dambeysay qofkii xogta ururiyay soo qaaday tafatiray ka shaqeeyay xog isku dhacaysan fara badan qofkii ka soo saaray war yar oo la akhri karo nadiif qaas kara waxa waad oo shaqadiis tahay qofka xisaabiyaha dhacdooyin aan dhacda aan lacag ku siinin shaqadiis ma aha marka taas dheen dhacda lacag ku siinin shaqadiis ma tusaale soo qaadan hadii la dhaho qof baa shaqada ka tagay qof shaqaalaha kamid ah shaqada ka tagay ama laga buriyo hadii loo waxaas anaga dadee warkaas aan qalno horta waxa ku fikirina meesha xisaab dhig soo kala laba qoom saameeyay lacag meesha ma ogtaysan meesha socota ama soo socota fiirnina hadii meesha ay wax jirin waxa shaqadeena taalo qof noo sheegay qof fiirna xalina ani ajaray ma ay sheegay qof shaqo ka tagay ama laga buriyo waxa sheegay ajaray mi marka waa sax hadii qofkii oo ku sii raacay laakiin qofkii oo baxay shaqada lagu buriyay lacag hore u sii loo soo qaatay oo dhacay yaa markaas shaqadeeda imaanaysa cadana yaa maxaa sheegtay qof kale oo fiirnay kaalkaan hor muhiim ah tacaamul soo laab marka loo dhameystir waayo qofkii hadii loo lacag hore u sii dhunsan markuu baxay sababta loo buriyay ama u dhunta oo baxay saas ay hadii loo waa ina qorna anaga sheegna cash out shirkad ka noqday sababta soo noqday hada sababta raaci weyn anaga hadana furtun soo gudbiyay hadii soo koobna videogan maanta wuxuu ka hadlayaa horta koow maxay ahayd oo ku saabsanaa videogeena muxuu qabtaa qofka xisaabiga waxa soo aragna akoontiga muxuu yahay goobaha ay tahay ama looga baahan yahay inuu ka shaqeeyo qofka xirfadda soo bartay habka loo diiwaan geliyo dhacdooyinka ay tahay in uu diiwaan geliyo qofka xisaabiga oo dhahnay dhacdooyin lacag ku seeynay noqoto habka loo diiwaan geliyo dhan intriga soo barnay faa'iidada si loo xisaabiyo netka sax faa'iidada saxda netka ee loo soo saaro soo barnay baana sheetka soo barnay si loo diyaariyo waxyaabaha laga arko muhiimadda ay leedahay sida ogaanada loo gaaro loo akhristo
waxaa kaloo sheegay in xisaabinta aas iyo laf dhabarba ay u tahay ganacsiga sidaas darteed aad looga taxtiro. waxaa kaloo kasoo hadalnay qofka tahay ku habboon tahay in loo shaqaaleysiiyo booska xisaabinimada. soo kale waxaa sheegnay inay jiraan group audit lahayo oo ka baxsan shirkadda oo soo kale shaqaaleysiis xisaab skills hor loo saxo oo checking la adkeeyo. intaan ayaan ku eegay fiidiyoga maanta. ilaa inta daawanaysa fiidiyoga aad iyo aad ugu mahadsantahay waqtigaada. haddaa wax ka faa'iiday like saar mahadsanidin. ugu dambeyntiina aksalin nabiyana allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad.